taliyaha qaybta lixdanaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Guute Maxamed Sheekh Cabdulaahi Cusmaan oo maanta soo gaaray degmada Xudur ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur. Taliyaha ayaa salaan la dhaxmaray maamulka gobolka iyo kan degmada oo garoonka ku soo dhaweeyay. Sareeyo Guute Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee guutada saqaalaada. Taliyaha ayaa soo dhaweyntiisa kadib la hadlay warbaahinta caalamiga CNA wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaashihiisa degmada Xudur ee xarunta gobolka Boqol isagoona u mahad celiyay maamulka gobolka iyo kan degmada sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen. qaybta lixdanaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed maanta waxaan soo gaaray magaalada Xudur ee gobolka Boqol waxaan halkan ugu mahad celinayaa saraakiisha guutada sagaalaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee si wanaagsan loo soo dhaweeyay iyo maamulka gobolka iyo degmada Xudur aad iyo aad baan ugu faraxsanahay si wanaagsan iyo walaalnimada ay noo soo dhaweeyeen waana gobol aan aniga naftirkayga ka soo jeedo waxaan aaminsanahay in si wanaagsan aan u wada shaqayn doono inkastoo aan muddo fog aanan imaanin gobolkan muddo ku dhow 20 sano maanta farxad weyn bay tahay inaan booqdo gobolka Boqol iyo guutada sagaalaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba shacabka gobolka ku dhaqan si aan u ogaado xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada koonfur galbeed ee gaar ahaan gobolka Boqol iyo habka wada shaqaynta maamulka gobolka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba si aan isku wareysano xaaladii ugu dambeeyay ee ka jira ee gobolka taasoo aan dib ula noqon doono madaxda naga sareysan aan gaarsin doono insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantiin soo dhaweyntiina. Maxamed Nur Ibrahim TV-ga CNA magaalada Xudur.